qaar ka mid ah dadka ku nool xaafado ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujinayaan dhulboob ay sheegeen inay ku hayaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. dadkan ayaa waxa ay tilmaameen in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Cumar Meyre Makaraan inay wadaan qorshe ay ku burburinayaan dhul ay deegaansanayeen dadkan muddo ka badan 30 sano. waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinka xaafadaasi oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan amarkan ka soo baxay sida la sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir. oday Xasan Cabdulle iyo Master Shaaciye oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in dhowr jeer ay la kulmeen mas'uuliyiinta gobolka Banaadir iyo kan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayna hordhigeen xukun hore ay u gaartay maxkamadda gobolka Banaadir oo ku aadana dhulkaasi. waxa ay tilmaameen in maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Dharkeenley ba ay ka dhaga adeegayaan amarkii ka soo baxay maxkamadda gobolka. laakiin waxaan rabnaa xukunkii
xasan kaahiye Somali News Muqdisho qaar ka mid ah dadka ku nool xaafado ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujinayaan dhulboob ay sheegeen inay ku hayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. dadkan ayaa waxa ay tilmaameen in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Umar Meyre Makaraan inay wadaan qorshe ay ku burburinayaan dhul ay deegaansanayeen dadkan muddo ka badan 30 sano. waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinka xaafadaasi oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan amarkan ka soo baxay sida la sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir. oday xasan cabdulle iyo master shaaciye oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in dhowr jeer ay la kulmeen mas'uuliyiinta gobolka Banaadir iyo kan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayna hordhigeen xukun hore ay u gaartay maxkamadda gobolka Banaadir oo ku aadanaa dhulkaasi. waxa ay tilmaameen in maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Dharkeenley ba ay ka dhaga adeegayaan amarkii ka soo baxay maxkamadda gobolka.
isaga guura